waxa uu ahaa nebi uu Eebbe subxaanahu wa tacaala ku sifeeyey runsheega. waxa uuna soo gaaray nebi aadan calayhi salaam muddadan 380 sano, waana ruuxii ugu horeeyey ee khad wax ku qora. magaciisa waa nebi idriis calayhi salaam, waana nebiga aynu doonayno caawa inaynu ka hadalno taariikhdiisa. nebi idriis calayhi salaam waxaa loo soo diray ubadkii nebi aadan iyo ciddii ay sii dhaleen. waxa uu ahaa ruux firfircoon oo diinta gaarsiiya qof kasta, mar walba iyo meel kasta. Eebbe subxaanahu wa tacaala waxa uu inoogu tilmaamay quraankiisa in sare loo qaaday nebi idriis calayhi salaam, waxa uuna ku sugan yahay samada afraad. Eebbe ayaa u waxyooday inuu u qorayo ajar u dhigma camalka dhammaan ibnu aadamka nool waqtigaasi. kadib waxa uu jeclaystay inuu siyaadsado cibaadada. hase ahaatee waxaa sare u qaaday malag kaas oo geeyay samooyinka. markii uu marayay samada afraad ayaa waxa uu yimid malakul mowt, waxa uuna ka qaaday ruuxda. sida aawadeed ayaa Eebbe subxaanahu wa tacaala quraankiisa ugu leeyahay warafacnaahu makaanan caliya, sare ayaan u qaadnay nebi idriis calayhi salaam. markii la dheelmiyey nebigeena Muxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayuu samada afraad ku sii maray nebi idriis calayhi salaam. qoomkii loo diray nebi idriis calayhi salaam waxay baaqi ku sii ahaayeen diintii nebi idriis, shiid iyo nebi aadan calayhi salaam. waxaan Allah subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa inuu inagu anfaco soo gudbinta qisooyinka nebiyada. ducadana haynaga ilaawina. Allah ha idin barakeeye.